dhaqana guure warkaas jijiga waxa ka soo diray Axmed Ibrahim Najaashi munaasabadan cala misaarka oo had misheer sida loo soo gaarsiiyay isla markaasna lagu qabtay magaalada Jiga ee xarunta dawladda Soomaalida ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqameedyo ka kala yimid inta badan deegaanka Soomaalida marti sharaf kale oo lagu casuumay cala misaarka suldaanka Suldaan Warsame dhaqan guure oo beesha xawaale ee degta dawladda Soomaalida oo wakiilatay inuu hogaamiyo beesha ayaa caan shubkiisa waxa qodobada kala duwan ka jeediyay waxa garad ugaasiyada suldaanada iyo garaadada oo dhamaantood ugu duceeyay inuu Alle ku asturo mansabka dhaqan ee uu dhaxlay saad ula socotaan beeshan Soomaaliyeed ee xawaale ee degan gobolka Shabeelle ee degan gobolka Andriska nahay ama Soomaaliya gobolka Hiiraan oo aad iyo aad u ballaaran oo gobol weyn aad u ballaaran oo deegaankeena Dris la awal ma jirin runtii qof laga la xiriiro oo dhaqanka deegaanka Soomaalida odayaasha ama kamid ama waxa la leeyahay wixii dib ee dheef ee beeshaas ka soo baxa ama wixii looga baahdo yahay beledweyne Soomaalida ogtiin meesha joogtaba waa qabiil waxaan leedahay xiriir dhaqan dhaqaale iyo xiriir wanaagsan ayaa soo igmaday ninkaas aan idin sheegay warsamow xil weyna maanta ku saaran ilaahina ku garab galo beelahaasna in aan maanta aad isu soo jiidid gogla u dhigtid waxay dhiig isu haysta wax walba isku haysta golaha nabadana halkaas aad wakiil ugu noqotid oo shaqadii lagu idmaday aad ka soo baxdidna waa ilaahay ka rajaynayna wax walba aad xalisid dulqaad aad yeelatid ummadaha Soomaaliyeed anaga maanta midnimo meel aan deganahay dibad iyo guud Soomaali meesha degan tahayba midnimo waxaan keenay walaalnimo in Soomaalinimo wixii ka soo hooseeyaba inaan laga gudbo yaan ku rajaynaa Sheekh Muxuudiin Sheekh Maxamed oo kamid ah golaha nabadda iyo midnimada deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee Suldaan Warsame dhaqane oo calaamad saarteen ay tahay inuu sii adkeeyo nabadda beelaha walaalaha ah ee wada deegaanka Soomaalida iyo gobolada deriska la ah ee Soomaaliya waxa lagu qiimeyn doonaa ama lagu tixgelin doonaa sida uu ka yeelo dadka deriska ay leeyihiin ama uu leeyahayba waxa lagu tixgelin doonaa wax qabadka uu la yimaado iyo waxa uu ku soo biiriyo naadiga dhaqanka waxa lagu ixtiraami doonaa sida uu ka yeelo bulshada walaalahooda ee ay wada degaan ee dhaqanku ka dhaxeeyo iyo dhiigga iyo deegaanku ugu dambeyntii garaad kulmiye garaad Maxamed ayaa dhinaciisa sheegay in si kale laab leh ugu soo dhaweynayaan bahda dhaqanka deegaanka loona shaqeyn doonaan si hagalaana isla markaasna Ilaahay ugu bariyay suldaanka inuu ku karaameeyo kuna shafro xilka loo igmaday kii dalka nabad ka keen Allah ka dhigo mas'uuliyadda weyn ee la saaray ee beritoole aakhiro Ilaahay naga xisaabin doona isagana Ilaahay u dhib yareeyo kii cadaalad ku dhaqa ummadaas Allah ka dhigo deegaankeena iyo dalkeena abaar baa ka jirta Ilaahay abaarta ay naga soo jabiyo isaga ciise iyo karama iyo sharaf iyo naga mudan dambi aynu galay weey waxaan Ilaahay noo ciqaabay inagana dambi dhaaf aan Ilaahay weydiisano ku Ilaahay u noqdo Allah naga dhigo abaartaan Allah naga soo jabiyo Suldaan Warsame dhaqane guure oo ah suldaanka beesha xawaale ee maantay boqortay ayaa tibaaxay inuu ku shaqeyn doono midnimada beeshiisa iyo beelaha Soomaaliyeed shalay iyo maanta laban kala hay waa kala duwanahay mar haddaan halkan fadhiyo aqalkii odayaasha guurtida waxa aniga igu waajibay qof nin Soomaaliyeed inaan dareemayaa qabiil waa la iskala tagay waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah taala aniga iyo cidii